kiiskan ayaa waxa uu noqday mid ka duwan kuwii horey ay u qaadi jirtay maxkamadda ciidamada qalabka sida, waxaana ka soo hor muuqday laba nin oo Itoobiyaan ah kuwaas oo ka soo kala jeeda qoomiyadaha Oromo iyo Axmaaro. Waxa ayna ka barbar dagaalamayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Hay-adaha amniga gaar ahaan hay-adda nabad sugidda ayaa gacanta ku soo dhigtay, maxkamadda ayayna ka soo hor muuqdeen. Waxa ayna maanta marti u yihiin shuute oo ay hor taagan yihiin. Haddaba waxaan rabaa xog ku saabsan nimankaasi wixii ay qabanayeen, waxa iyagu ay sheegeen, iyo sidoo kale shakiyadii horey u jiray oo ahaa in gacan saar ay leeyihiin Itoobiya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. xog ku saabsan ayaan rabaa muuqaalka inaan kugula wadaago. sii share garay la wadaag saaxiibada Facebook kugu helinaya, page-kana soo follow garay kana mid noqo dadka ku xiran si wararkeena ay kuu soo gaaraan. qaybta hoosena ama linkiga raac oo soo subscribe garay YouTube-keena oo isla muuqaalkan oo dhammaystiran halkaas aad ugu tagi doonto. aan ku bilaabo, labadan nin ayaa waxa ay kala yihiin qoomiyadaha Oromo iyo Axmaaro ee Itoobiya. muddo ayay ka barbar dagaalamayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxa ayna u ahaayeen sirdoon sida iyaga ay sheegeen dalka Itoobiya. xogta halkaasi ay ka qaadaan ayayna dalkooda u gudbinayeen. haddaba tani waxa ay iftiiminaysaa shaki weyn oo horey loo qabay in Itoobiyaanka iyo kooxda Al-Shabaab xiriir uu ka dhexeeyo. sidoo kale dad badan oo Itoobiyaan ah ayaa horey looga shaki qabay in ay dalkooda sirdoon u yihiin kana dhex shaqeeyaan gobollada dalka Soomaaliya. qof kasta oo muuqaalkan arka ha share gareeyo, Soomaalinimadana ay ku weyn tahay. horeyna u ogaa in Itoobiya gacan saar ay la leedahay maleeshiyaadka Al-Shabaab. waayahay, markaan muuqaalkeena ku sii socono, labada nin waxa ay sheegayaan muddo inay ku jireen maleeshiyaadka Al-Shabaab, laguna soo tashkiiliyey isla markaana halkaasi loo soo diray. oo mid ka mid ah waxa uu sheegayaa nin isaga ehel ama qaraabo dhow ay yihiin in uu kooxda Al-Shabaab ku soo biiriyey lana hadlay. sidoo kalena halkii uu tegi lahaa iyo meeshii uu ka geli lahaa intaba uu u calaameeyey. maleeshiyaadka Al-Shabaab inta badan dadka ka barbar dagaalama waa ajaanib qaarkood, waddamo kala duwan ayay ka yimaadaan. Oromadana waa ay u badan tahay oo marar badan ayaa ama la dilay ama la soo qabtay kooxo Oromo ah oo maleeshiyaadka ka barbar dagaalamaya. haddaba maxaad ku xukumi lahayd labadan nin oo dalka Itoobiya u dhalatay, maleeshiyaadka Al-Shabaabna ka tirsanaa kana barbar dagaalamayay, shacabka Soomaaliyeedna gudaha Soomaaliya ku gumaadayay amaba ku xasuuqayay, dhibaato badanna u geysanayay, sidoo kalena siraha u gudbinayay waddankooda, oo la aaminsan yahay in maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo Itoobiyaanku xiriir qoto dheer uu ka dhexeeyo. sida xogta aynu ku hayno, marar badan Itoobiyaanku waxa ay sheegteen dad badan inay kaga dhigteen dagaalada lala galo maleeshiyaadka Al-Shabaab. weliba laga soo bilaabo 2008 ilaa 2012 gobollada dhexe dagaaladii ka dhacayay, in dad badan oo iyaga sirdoon u ah oo dhanka Al-Shabaab ka tirsanaa ay dagaaladaasi kaga dhinteen. nala wadaag aragtidaada ku aadan nimankan Itoobiyaanka ah ee maanta ka soo hor muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyo waxa aad u aragto inay u qalmaan in lagu xukumo. waa ku mahadsantahay in halkaan nala soo gaartay. share garay muuqaalkan la wadaag saaxiibada Facebook kugu helinaya, iyo qof kasta oo qadiyad Soomaaliyeed ay ku jirto. page-kana soo follow garay ka mid noqo dadka ku xiran.